السلام عليكم walaalayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa sheekooyin xikmad iyo qosol iskugu jira oo dadku aad u jecleystaan waxaan qisooyinka ugu talagalnay inaad farxadda islaamka la qaybsataan iyo inaan idinka faa'iideyno xikmadihii dadkii hore ee wanaagsanaa qisada koowaad waxay ka sheekeynaysaa xoolihii la waayay waxa laga soo wariyay imaamkii weynaa Abu Xaniifa Ilaahay ha u naxariistay jannadana ha ka waraabiye inuu nin u yimi oo weydiiyay su'aal cajiib ah wuxuu yiri imaama waxaan lacagteedii ku aasay dhulka kadibna waan waayay meeshan ku aasay waanan baadhay ilaa iyo muddo maanan helin ii sheeg sheekhow xagee lacagtaasi taalo Abu Xaniifa wuxuu dhahay su'aashani ma aha mid la weydiiyo culimada fiqiga kadib imaamkii Abu Xaniifa muddo ayuu fakaray wuxuuna ninkii ku yiri sawdooni maysid inaad hesho lacagtaadii waa inaad tukato salaad caawa ilaa inta ay qoraxdu ka dhacayso ninkii waa soo baxay wuxuuna bilaabay inuu tukado salaadii hase ahaatee markuu dhowr rakacadood tukaday ayuu ninkii xasuustay meeshuu ku aasay lacagta kadib intuu salaada ka baxay ayuu soo saartay lacagtii subaxii ayuu wadaadkii u yimi oo yiri imaamow Ilaahay khayr ha ku siiye sidaad ku garatay inaad lacagteedii helo wuxuu yiri waxaan ogaa inuu shaydaanku salaada intaas leeg ku ogolayn markaasuu ku xasuusinayaa si uu kaga mashquuliyo salaada Ilaahay wassalaamu calaykum